الحمد لله horta daahirada quluwigu ama diintii xuduudeedii iyo fahamkii qof ku qalloocday waana wax soo jiray haddana jirina doona laba daahir iyo laba qaab oo ishabaha oo mid walba laba taale la yiraahdo baa jira mid waa mid uu saailku weydiinayo tabdiic iyo tanfiir ka cayrisiga dadka diritaan ku diris baa la yiraahdaa mid labaadna waa mid meel bala badan haysato takfiir iyo tafjiir baa la yiraahdaa gaalaysiin iyo qarxin labada daahiro ama labada qaab waa laba qaab usuusha iyo ususka qawaacidooda isku mid ah way laakiin ninba dhan bay ula durugtay haddaba tatas dhaqanka habooni horta ha ku taayana ku saamaynin oo dhaqanka iyo dad shaqo ka dhigashada ha ku raacin marka koobaad marka labaad meel masaajid iyo meel ka fiican oo sunnada uga dhow oo lagu tukado cashirna laga dhageysto haddaad heli kartana middaa kale uga wareeg haddii aadan heli karin dee wixii khayrana ka qaado wixii dad maagitaanana ha ka yeelin jamaacadana la tuko